iyadoo jiro khilaaf hareeyay doorashooyinka Soomaaliya iyo isqabqabsi u dhaxeeya xafiiska madaxweynaha oo dhinaca iyo dhammaan dhinacyada saamileeda siyaasadeed ee Soomaaliya. Maalinnimadii shalay waxaa bannaanka u soo baxay khilaafka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra'iisul wasaaraha ayaa isla shalay shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin oo ahaa shakhsiga ugu maqalka badan siyaasadda Soomaaliya saddexdii sano ee la soo dhaafay, waxaana lagu tiriyaa inuu yahay garabka koowaad ee siyaasadda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. isla shalay ra'iisul wasaaraha wuxuu taliye ku meel gaaray hay'adda nabad sugidda u magacaabay sareeye guuto Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo ahaa taliyihii hore ciidankaasi luubta, waxaana lagu tiriyaa inuu yahay shakhsiyaadka ugu aqoonta badan ciidanka qaranka uu leeyahay. dilkii sargaaladii ka tirsaneed hay'adda nabad sugidda qaranka ee Ikraan Tahliil iyo ka falcelinta ra'iisul wasaaraha Roble iyo go'aanada uu qaatay waxay bannaanka soo dhigtay khilaafka u dhaxeeya guriga ra'iisul wasaaraha iyo Villa Soomaaliya oo maalmahan iska jiray inkastoo aysan warbaahinta iyo indhaha caalamku aysan qaban, dad badan oo Soomaaliyan aysan ka warhelin. xaaladda kala guurka siyaasadeed markay dhacdo khilaaf inuu soo kala dhaxgalo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay noqotaa safar salaameynta madaxweynahaasi, taasina waxay isku soo xirtaa hamigiisa doorasho iyo dib ugu soo noqoshada. markii la qiimeeyo siyaasadaha Soomaaliya 10kii sano ee ugu dambeeyay, maadaama ay mucaaradku helayaan saaxiib ku garab ah iyo wasiirkii koowaad ee xukuumadda xilgaarsiinta ah, maadaama ra'iisul wasaaruhu uusan awood u lahayn inuu madaxweynuhu kaga hor yimaado golaha baarlamaankana uu madaxweynuhu geeyo mooshin kaas uu ku eriyay ra'iisul wasaarihiisa. taasina waxay xirtaa safarka madaxweynaha dib u soo noqoshada siyaasadda mar kale 4 sano inuu ku guuleysto filadan uu ka taliyo. 10kii sano ee ugu dambeeyay siyaasadda Soomaaliya khilaafadii soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligoo filada jooga waxa khilaaf uu kala dhaxeeyay ra'iisul wasaarihiisii ugu dambeeyay oo soo xushay Cumar Cabdirashiid. doorashada inteeda badan garwadeen waxaa ka ahaa xafiiska ra'iisul wasaaraha, qaybna waxaa hirgeliyay madaxweynaha. inkastoo aysan doorasho la isku khilaafin, haddana kala xoodashada baarlamaanka la soo xulay iyo awood qaybsiga waxay ahaayeen laba ku hardamayso iyo laba musharax oo u wada tartamaya doorashada. xilligii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaarihiisii ugu dambeeyay oo soo xushay wuxuu ahaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. khilaafkii u dhaxeeyay wuxuu suurtagal ka dhigay Sheekh Shariif inuusan dib ugu soo noqon madaxtooyada, maadaama baarlamaankii la soo xulay ee laba garab u kala noqday, qaybna oo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas u codeynayeen, qaybna ay codka ay siinayeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Soomaaliya haddii ay dhacdo khilaaf inuu soo kala dhaxgalo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, inta badan kuma saleysna hanaan dastuuriya, ma jira maxkamad ka falcelin karta. ra'iisul wasaare Roble wuxuu taariikhda ka galay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii khilaaf ku kala taga iyadoo waqti doorasho lagu jiro. haddana waa gabagabada inuu mar kale filada dib ugu soo noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maadaama ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu yahay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah, awoodda doorashadana uu gacanta ku hayo. tanna waa macsalaameynta madaxweyne Farmaajo. haddii aad ku cusub tahay fadlan janaalkayga subscribe dheh, leegtana dhacdhac ku sii si aan mar walba u noqono saaxiibo isla socdo. goob walba aad joogto ila soco, aniguna waxaan ahay Maxamuud Milano. Soomaaliya tan iyo kulan dambe, nabadgelyo, fi amaanillah.